assalaamu calaykum. Sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay ninkii libaaxa seediga u noqday. Markaan ku idhaa ninkii libaaxa seediga u noqday waad yara yaabasaa, laakiin waa qiso dhaba oo dhacday xilligii ay Soomaalidu inta badan iska ahayd reer guuraaga. Haddaba haddaan sheekada toos u gudagalo aan idin yara fahansiiyo wadciga iyo qaabka nolosha halkaa sheekadu ka dhacday ahayd. Waxaa wada deganaa laba beelood oo markaa colaadi ka dhaxayso oo xoola iyo dad midna aan isbixin geela kala dhaca xaalad halis marka waa laba beelood oo colaad dhex taalo. Deegaan baa u dhexeeyay aada u weyn oo ay jiq ah oon cidigelin oo iska noqday bahal la galeen. Halkaa waxaa ku nool markaa libaax aada u halisa oo dad qaada oo loo yaqaanay waqtigaasi daboole, yacni uu daba go'naa hilib bani aadan mooyaane afkiisa ma geliyo hilib xoole ama xayawaan. Libaaxaasi aad baa deegaanka looga yaqaano halis buu ahaa. Markuu caawa halkan u dhaco dhowr caana maal kadib meel kale u dhacaa. Wuu ku mamay, halisna wuu ahaa, dad badanna wuu galaaftay. Dhinacan kale waxaa ku noolaa beeshan ninka suldaanka u ahaa. Waxaa jirtay gabadhaasi uu suldaanku dhalay oo nin u doonanayd waqtigaa. Dhankan kale waxaa jiray wiil dhallinyaro ah oo isagu dhallinyarada hubqaadka ahaa xilligaa ee dagaalka gasha oo geeljirayska ah. Ninkii markaa dhinacan beeshan kale ee geeljira ahaa ayaa markaa neef waayey. Neef geela ayaa geeli ka hadhay uu waayey, baadidoon buu tegay. Baadidoonkii isagoo ku maqan ayuu leera fogaatay. Kayntii aygii cidlada ahaa ayuu neefkii bal la galay, bal amarka ilaahay raadkiisii waxa. Ninkii wuxuu is arkay isagoo kayntii bartanka ugu jira, habeenkiina gabal baa u dumay, roob mahiigaanina wuu da-ayaa, meeraalaa ka daba yimid, dhaqaaq ma jiro. Ninkii wuxuu go'aansaday in haddii uu sii socdo cida libaaxa dhacaysa iyo waxa dhaxan dhacasa iyo roobka da-aya indhaha haddii faraha lagaa geliyo waxa maarkaysid. Geed weyn oo halkan hoostiisa cadaad weyni sidaa ugu oo geedaha dhuljiifka ah ee xayawaanka aanay dhex geli karin sida libaaxa iyo shabeelka iyo waxyaabahaasi ay ku adag tahay inay dhex galaan oo xoog ballaadhan ayuu sidaa u kala jiitay, guduhu u galay. Halkaasuu is yidhi markaa waagu wax kuugu baryo, roobkana geedkan saraa ka qarinaya, aduu amni buu halkaa ku ahaa. Ninkii habeennimadii halkaasuu hooyday. Waa tahay habeennimadii markii isagoo roobkii da-ayaa libaaxii daboole caawa wuxuu u leeyahay beeshii dhinacan gabadhu ka soo jeedo ee beesha wiilku ka yimid maaha, dhinacan kale u baxay. Aalaaba markuu libaaxu markaa uu dadka iyo waxyaabaa uu ka garaad dheer yahay, khaasatan kuwa ma aragtay dad qaadkii dhiigga bini aadanka cabbaa way kasii garaad dheer yihiin kuwa kale. Wuxuu u galay meel yar buu sii istaagay isaga oo markaa raba in uu fursad ka helo qof soo baxay kaadi ama inuun cidla guuraynayo. had iyo jeerna dadka socotada iyo dadka maaragtay kaadisu waxaas u eegtaa aan hore loogu soo gurban karin. Gabadhii markaa suldaanku dhalay ayay kaadi qabatay saqdii dhexe. Aalaaba dumarkeena Soomaalida geesiyaal bay u badan yihiin iminkii markii horeba, dumarkaasina way kasii xag jireen. had iyo jeerna haddaad meelahan soko la fadhiisata kaadida dee waa lagu dareemayaa, raadkaaga beri la arkay ceeb bay ahaan jirtay, way lala yar fogaan jiray. Kaalay raac qof ay tidhaan aad u hore umay helin way iska baxday. Xoogay markay la yara durugtay inankii libaaxii dabooloo halkan ku dhabaraya ayaa xagga dambe kaga yimid, wuu lahaaday. Halkaasuu kala baxay, jiiday. Halkaa markuu sii jiidayay buu dee ma aragtay dharkii iyo timihii iyo wixii oo dhan wuxuu ku jarjaray, dee dhulkuu sii dhex marinay geed iyo balaayo wax. aada uma jajabin iyada amarka ilaahay wax ka qabtayba. siduu u sii jiidayay iyadoo nof geeriyo nolol la-aana ayuu kayntii la dhex galay. geedkii uu inankii ku jiray amarka ilaahay ayuu hordhigay. libaax wuxuu caan ku yahay
marka uu qof ama raq ama wax soo dilo dib buu u laabtaa raadkiisii horuu raacaa ilaa uu ka gaadhayo halkii uu ka soo qaatay bal inay cidi daba socoto ama col ka daba yimid libaaxii markaa wuxuu dib u raacay geedkii halkii raadkiisii buu dib u raacay ninkii markii uu ninkani de waa nin roob ku da-ayo oo meesha oo hurdo fiican ma jirtee rambashda uu maaragtay libaaxu qofka dhigay unbuu ka war helay hilaacii biligiinina wuxuu ku arkay inuu qof sito daboolana wuu yaqaanay dabeecaddiisa oo warkiisu kuma yarayn ninkii hilaaciibuu ku yara eega wuxuu arkay inuu libaaxi laabtay markiiba wuu gartay inuu raadkii dib u raacayoo uuna goorahan soo noqonayn ninkii go-aan geesinimaluu sameeyey wuxuu isyidhi armuu qofka nool yahay maanta bilaad shimbiro noqota wuu ka soo baxay geedkii ninkii wuu soo durkay ee inantiibuu sidaa u qabtay sidaadii u qabatay dee libaaxii bay haddana moodoo ku soo noqdo way yaro booday markaasuu yidhi waa aniga wuu qaatay barhtanka geedku la tegey wuu soo ootay halkii uu ku jiray amniga ahayd ayuu geystay laba go' buu guuntanaayo dee maxamuudiyo uu ku duubayo meelihii dhiiguu xidhxidhayo wixii uu qaban karayuu qabtay libaaxii markuu halkii taguu soo laabtay isagoo casho fiican ku talagalay caawu bartii ku soo noqday cidiba ma joogto xaggan u cararo wuu iska xiiqo halkiiba ku sabray waagiibaa beryey markay cadeedii soo baxday ayay ninkii iyo gabadhii meeshii ka soo baxeen gabadhiibuu dee ilay naf adag kuma jirtay xalaybuu dee af libaax gashaye wuu soo lugaysay wuxuu ku yidhi haddaba meelaha reerka u dhow baan ku gaadhsiinan waan soo laabana dee colaad baa ka jirta dhulkoo reerkiinii bixin mamay wallaahi inaanad naga tegeyn dadkii aroortii markay dareemeen oo warinantii ma joogta iyo xalaybu libaax qaatoo lasoo raadiyo kildhi xuno halkaa loogu teg la arag dharkeygii wixii raadkii iyadoo la qaaday roobbaa ilayn ka daba masaxay dhulkii kayntii iyagoo soo socdo isla lafihii bal inaad soo heshaan ada aasataane ayay arkeen nin iyo gabadh meesha wada socda yaab waaba iyadiioo dee ku guntan oo dee ay dhar u yihiin wixii yaraaye ma garanaysaa go-i uu ninkani dee xalay toole adigu sidiibuu ayay reerkii ku yimaadeen suldaankiiba arrintii looga warramay ninkii dee suldaankii horjoogaha reerka ahaa ee colaaduna beesha kale ka dhexaysay oo isku diyaarinayay dee ma garanaysaa reerkaa kale inuu dagaal iyo geelku ka soo qaado la arag la iswaraysay arrintii uga warray inantii waxay tiri wallaahi nuuna tubtayda nin kale taabanayn ninkaa aan xalay toole u dhaxay aniga oo ma garanaysa xaaladeedu saahayd mooyaane sidiibuu ku guursaday xoola loo soo raaciyey hawshii lagu dhameeyey labadii beelood ku heshiiyeen gabadhii 10 bay u dhashay iyo 11 waxay ahayd mooye wuxuu yidhi daboolaa seedi kuu noqon weligay isma lahayn daboolaa ku cuni mooyaane sidaasuu libaaxaasi inantaas sabab ugu ahaa inuu guursado halkaasuna seedigu ka timid sheekadan faalladu waa dhinaciina la wadaaga asxaabtiina channelka ku xidhnaada aad baad u mahadsantihiin